waxaanu ka ambabaxnay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug aniga koox wariyaala safarka waxaanu u ambabaxaynaa tuulada Samansamdo oo qiyaastii Gaalkacyo u jirta 40 kilomitir goor duura ayaan tagnay tuulada Samansamdo annagoo ujeedka safarkayagu yahay tabinta sheekada Jabiil oo ah 18 sano jir hindisay samaynta diyaarada ka samaysan karaatoon isagoo docda kala dabaysha ka dhalinaya koronto dadka deegaanku ay ku amaaneen balse waayay taageero shacab iyo mid madaxba Jibriil Cabdirasaaq wuxuu qolkiisa ka dhax samaystay xarun uu ku dhaliyo korontada sidoo kalena uu ku farsameeyo diyaarado iyo TV-yo uu ka sameeyay karaatoon Jibriil Cabdirasaaq wuxuu iga sheekeynayaa goorta isku arkay inuu diyaarad samayn karo wuxuu sheegay inuu muddo badan ilaa yaraantiisii ku fikirayay inuu injineer noqdo soona saaro diyaarado gawaari iyo wixii la mid ah balse dhaqaalaha uu ciilay horta walaal muddo badan ayaan waxaan farsamadan baranayay oo nafsadeeda anigu aan barayay practice-na sameynay muddo badan ayaa dabcan soo bandhigo because of dadku waa kala dhaqaale badan yahay horta farsamadeeda oo aragtiin sida ay u muuqato halkaan oo u imaateen maanta aragtiinba anigu muddo badan bay ugu qaadatay inaan waxaan soo bandhigo farsamadan waa waxaan anigu qalabkan waxa meelaha ka soo kala urursaday waa waxaan dad ii gadeen laakiin garab xoog leh mise dhaqaale xoog leh oo lagu fangareeyo oo wax soo saar fiican aan ku sameeyo wali qofna kama helin waayahay dabcan waxyaabaha hadda soo saartaan u jeedo ama samaysay diyaarada kartoon ka samaysan ay isugu jira dhinaca korontada ka waran systemka oo kale tuulada horta koronto magaaladu ma lahayn markii hore hadda laakiin ana telefoonada u dabeeya iftiinkana ana nalshida banaanka u shida dadkana waa kuma weylahta TV-gan gaasti habeenkii waan daara codadka wararka maalintii dhaca mise waxa soo tabiya oo dhiga ka soo dhaxdaaya TV-ga codkiisa وكاولا معن waxaan yaraantaadii miyaa ku haminaysay inaad samayso diyaaradaha noqoto kulli qof walba markuu yar yahay waxyaabo badan buu ku fikiraa mise wax hadda kugu dhalatay weey maxamed horta muddo badan ayaan jeclaa inaan hankayga u ahaa inaan waxbarasho fiican helo si aan u soo saaro waxyaalo badan oo tayo leh oo kamid yihiin diyaaraduhu TV-yadu satellite-yada farsamooyinka electronic misfar electronic hadii la dhaho walaakiin waxbarasho oo meel ku gaari karo wali ma helin mana waayahay ma jirtaa marka intii aad hawlahan ku guda jirtay cid kula soo xiriirtay haddii dhaqaale kugu yabo hayaan iyo haddii qalab ku siinayaan ma jirto qofna waligiiseen ma igu garabsiin inaan micnaha dhaqaale helo oon farsamadan heerka gaaro waayahay ummadda Soomaaliyeed ku daawanaysa waa markii ugu horeysay oo warbaahin ku timaad saan jeclahay oo telefishinka laga daawado maxaad u jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed ku daawanaysa maadaama nin dhalinyaro ah oo wax sameyn kara ama dalka wax ku soo kordhin kara waxaan dhahayaa dadka Soomaaliyeed ee muuqaalkayga daawanaya waxaan ahay wiil daayiro farsamo yaqaan ah jecelna inuu waxbarasho dibadeed helo waxbarasho jaamacadeed inaan helaan jeclahay oo dibadeed waxaan ka codsan lahaa dadka Soomaaliyeed daawanaya muuqaalkayga cidii garab siin karto oo hankayga meesha rab gaarsiin karta fadlan waxaan ka codsan lahaa inay garab siiyaan xaawo waxay ka mid ahayd gabadh safarka nagu wehelinaysay waxay Jibriil guddoonsiisay hadiyad ay ku dhiirigelinayso dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo maanta telefishinka naga daawanaysa waxaan ka codsanayaa wiilka yarka oo amiga sare leh oo maanta halkaan ku soo booqanay inay hadafkiisa gaarsiiyaan wax la qabtaan garab istaagaan walaal macaan hanayeen baan ku leeyahay hore u soco meesha aad maanta taagantahay inaad hore uga sii socotid oo maanta diyaaradahan aad soo saartay waa diyaarada macbila aad soo saartay diyaarada lagu socdo ma ku rajeenaya hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala eedamo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaaniin wiilkaas yarka waa wiil yar oo da'yar ah hankiisa iyo hadafkiisa meesha uu leeyahayna la gaarsiiyo injineer Jabiil waa wiil da'yar 18 sano jir kuna nool tuulada Samansamdo ee duleedka Gaalkacyo wuxuu xilligan rajeynayaa inuu heer wanaagsan ka gaaro tiknoolajiyada Maxamed Laki Maraasan TV Gaalkacyo